لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnaa weli suuratu yuunus. waxaa noogu soo dambaysay cilmiga ilaahay ballaarnaantiisa iyo weynaantiisa. sha'ni ma ahaatid, qur'aanna xaggiisa kama akhrisid, idinkuna ma camal qabataan camal ilaa waxaan nahay kuwa markhaati ka ah xilliga aad dhex dabaallanaysaan ayuu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala. xilliga aad markaa dhex dabaallanaysaan camalkaa gudihiisa wax ka qaryar oo ka weyn oo ka qarsoonaan kara ilaahay ma jiro. shay kastana ma ahaanin ilaa kitaab gudihiisay ku sugan yihiin. alaa hooyaay, inna wliyaa'a allaahi, ilaahay awliyadiisu laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin, walaa hum mana ay ahaanin yaxzanuuna kuwii markaa murgoonaya. ilaahay awliyadiisu ma baqaan mana cabsadaan, kama baqaan waxa ka horeeya, mana murugoodaan waxay markaa ka tegayaan. bacdamaa alla caabudeen oo ilaahay awliyadiisii ay noqdeen, in badan ay cabsadeen. laba cabsina laysugu dari maayo. sidaa darteed baa qofka laba amnina aan laysugu darin, laba cabsina aan laysugu daraynin. qofkii adduunka ku baqee ku cabsada aakhiruu amni helaa. qofkiisa amni isgeliya oo aan ilaahay uga baqin adduunkana aakhiruu baqaa. alaa hooyaay, inna wliyaa'a allaahi, ilaahay awliyadiisu laa khawfun cabsiimo calayhim korkooda ma ahaanin, walaa hum mana ay aha yaxzanuuna kuwii markaa murgoonayana ma ahan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaalaaye yeeyihiin awliyada alleh. awliyada ilaahay aladiina kuwii waaye aamanuu rumeeyey oo wakaanuu yattaquuna kuwa cabsanayoo ilaahay ka baqayna noqday, kuwa waaye awliya ilaahay. ma rabtaa inaad awliyo ilaahay tilmaamahooda ogaato? iimaan iyo taqwo ka fiiri. haddii qofka labadaa aad ka weysa weli shaydaan waaye. ha buubo, baalalna ha yeesho, kacbadan ku soo tukadaanana ha dhaho, wuxuu raba ha sheegtee haddii labadaa laga waayo waa shaydaan awliyo. ulaa'ika xisbu الshayطaan alaa ina xisba الshayطaani hum اlkhaasiruun aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey waaye awliyada ilaahay oo wakaanuu ahaada yattaquuna kuwa markaa cabsanaya. lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday awliyada alle albushara, bishaaray ku leeyihiin fi lxayaati اddunyaa, noloshan adduunka ee dhow, iyo wa fi laakhirati, aakhira dhexdeedaba. laa tabdiila, bedelitaanna ma sugnaanin likalimaati illaahi, ilaahay kelimaadkiisa la bedelo. daalika arrintaana huwa alfawzu, waa liibaan alcadiimu ee markaa weyn. taana liibaan weyn waaye buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. awliyadaa ilaahay ee aan cabsanin qiyaame ee aan ka murgoonayn waxay ka tegayaan, tilmaamtoodana noqotay iimaan iyo alla ka cabsi, bishaaro ayay leeyihiin. xayaatada adduunkana bishaaray ku leeyihiin, aakhirana bishaara ugu sugnaatay. ta adduunkana ay ku leeyihiin waa riyada fiicfiicane ayagu ay arkayaan ama loo arko. haddii aakhiru zamanka la gaaro, qofka mu'minkaa riyadiisu been inay noqoto ma sigto. waana dhowr qayb oo ka mid ah nubuwada iyo waxyiga. sidaa darteed waa bishaaro ahoo riyo wanaagsanee qofka weligee iimaanka leh loogu riyoodo ama uu markaa ku riyoodo. ama bishaarada adduunku waa mar allaala markay adduunka ka tegayaanoo malaa'igtu ay markaa u bishaaraynayso. lahum اlbushraa,
lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday owliyada alle albushraa bishaaray ku leeyihiin fi lxayaati addunya xayaatadan iyo noloshan dhow dhexdeeda iyo wa fi laakhirati aakhira dhexdeedaba laa tabdiila bedelitaanna uma sugnaanin likalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa ay markaa beddelaan daalika arrintaana huwa alfawsu waa liibaan alcadiimu ee markaa weyn walaa yaxsunka yaysan ku murjinin rasuulkii ilaahayow qowluhum qowlkooda waxba yaysan ku tiirinin waayo wax kastay kugu dhahayaan ilaahay wuu maqlayaa wuuna u jeedaa rasuulkii allow ciso iyo sharaf adaa iska leh mudnaan iyo khayrna adou kuu sugnaaday hadalkan waa shaacir iyo waa abwaan iyo waa waalan yahay ay ku leeyihiin waxba ha ka murgoonin walaa yaxsunka yaysan ku murjinin rasuulkii ilaahayow qowluhum qowlkooda ina alcizata cizadu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay jamiican dhammaanteed waayo huwa asamiicu alcaliim waa alla maqal badan oo cilmi badan subxaana wa tacaala waxba ha ka murgoonin qowlkooda waxba yaynan ku tiirinin rasuulkii alloo walaa yaxsunka yaysan ku murjinin qowluhum qowlkooda hadalka ay leeyihiin qowluhum qowlkooda ha ka murgooninoo waxba yaynan ku tiirinin ina alcizata cizadu lilaahi ilaahay bay u sugnaatay jamiican ayadoo dhan huwa asamiicu alcaliim mid cilmi badan waaye oo maqal badan alaa hooyaay inna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday man cidda oo fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo waman wixii fi lardi arlada ku sugan oo dhan wamaa yattabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna baryaya min duuni illaahi alla sukadiisa kuwa alla sukadiisa baryaya raaci maayaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa shurakaa'a kuwa alla wax la wadaagaa ma raacayaan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala rasuulkii ilaahay waa la tabargelinayaa oo waxaa loo tilmaamayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sheegayaa waxay tahay waxaan shuraka ah ee ay kuwaan caabudayaan inaysan ilaahayba waxba la lahayn maba mudnaba wax ay ilaahay ku leeyihiin ama ay la qaybsadaan ma jiro wamaa yattabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadacuuna baryayee caabudahaya min duuni illaahi ilaahay sukadiisa kuwa ay caabudayaan shurakaa'a kuwa shuraka ahoo ilaahay wax la wadaaga raaci maayaan kuwa ay raacayaan waa waxay iska mala'waaleen oo dhagax iyo qori iyo geed ah waayo maahee waxay ilaahay agtiisa ka leeyihiin ama ay rabbi la wadaagaanoo xaqiiqo ah ma jirto waa waxay ayagu iska danninahayaan in yattabicuuna raaci maayaan ila adanna mala maahane wa inhum maa hum ayaguna ma ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwa wax qiyaasahaya maahane waa kuwa iska mala'waalayo wax mala'waal iska wata ee waxaan ay caabudayaan wax shurako ahoo ilaahay wax la wadaaga oo qayb mulki kula leh maba raacooyinba wamaa yattabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadacuuna caabudahaya ama baryaya min duuni illaahi alla sukadiisa shurakaa'a shuraka ma raacayaan kuwa alla wax la wadaaga oo ay raacayaan oo ay ilaah ka dhiganayaan ma jiro meel cidlay haystaan macnaha in yattabicuuna raacina maayaan ila adanna mala mooyaane wa inhum mana ahaanin ayagu ilaa yakhrusuuna kuwa wax iska qiyaasoo iska mala'waala maahane huwa ilaahi alladii macbuudkii waaye jacala yeelay lakum adinka alleyla habeenkii idiin yeelay litaskunuu si aad ugu xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa habeenka markuu yimaado dadku way xasilaan in badan baa habeenkiina raaxo loogu talagalay maalintiina shaqa loogu talagalay hadday wax isbeddeleenoo habeen la shaqeeyaa maalinna la jiiftaa maahee habeenkiina ilaah wuxuu yidhi waxaan idinkaga dhignay libaas hurdadiinnana subaad maalintiinna macaash
tiibaa marka laga hor yimid maanta tiibuu ilaahay noo tilmaamayaa huwa ilaahay alladii waa macbuudkii jacala yeelay lakum adinka alleyla habeenkii idin sameeyey litaskunuu saad ugu xasishaan ood ugu degtaan fiihi habeenkaa gudihiisa waannahaara maalintiina mubasiran buu ka dhigay mid wax arkaysa macnaa mid iftiimaysoo shaqada iyo howlqabadka ku fiican habeenkiina mugdi in la xasiloo la raaxaystoo la dego howl maalmeedkiina laga nasto ku habboon ayuu ka dhigay inna fii daalika arrintaana la aayaatin aayaad baa waxaa ugu sugan liqowmin yasmacuuna qoomka maqlaaya xaqa iyo awaamirta alla fulinteeda iyo waxa la amraya maqlaaya kuwaasay aayad ugu jirtaa huwa ilaahay alladii macbuudkii waaye jacala yeelay lakum adinka alleyla habeenkiina idin yeelay litaskunuu si aad u degtaanood ugu xasishaanood seexataanood ku raaxaysataan fiihi habeenkaa gudihiisa waannahaara maalintiina mubasiran buu ka dhigay mid aftiimaysa mid wax arkayso inay dadka wax arkaan baa loola jeedaa oo ay ku shaqaystaan buu ilaah ka dhigay inna fii daalika arrintaana la aayaatin aayaad ayaa liqowmin qoom ugu jira qoomkaasoo yasmacuuna maqlahaya qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay waladan walad ayuu ilaahay yeeshay subxaanah nasahnaantiisa alla waa nasahan yahay inuu walad samaysta ayuu ka hufan yahay waayo huwa alghaniyu alghani ah waaye waa kaaftooma oo uma baahna walad wax dhimanayo faraciisa inuu sii jiro qof gaboobayo mashaaryada iyo boorashka qof u kariya u baahan musqusha geeyoo gacanta ka qabta ayaa walad u baahan laakiin ilaahay huwa alghaniyu waa alghani ah waa ka kaaftoomaa mana u baahna lahu waxaa u sugnaaday maa fi asamaawaati waxa samaawaadka ku jira oo dhan iyo wamaa fi alardi waxa arlaba ku sugan in cindakum agtiina min sulطaanin xujo ma yahay bihaadaa arrintan aad ku hadlaysaan oo ah ilaahay baa walad iska leh ma suldaan baad u haysataano agtiina ah in cindakum ama maa cindakum agtiina ma ahaanin min sulطaanin suldaan iyo xujo bihaadaa arrintan ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allaahi ilaahay dushiisa maa laa taclamuuna waxaadan ogayn miyaad ilaahay dushiisa ku leedihiin subxaana wa tacaala qaaluu waxay yidhaahdeen waa intii ilaahay owlaadda u nisbaysaye ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay ama uu yeeshay waladan walad ayuu yeeshay ilaahay yaa owlaad leh miyay dhaheen subxaanahu ilaahay wuu ka nasahan yahay nasahnaantiisiiye ilaahay uu ka nasahnaaday inuu owlaad yeesho waayo huwa alghaniyu waa alla hodan ah ilaahay waa alla taajir ahoon owlaad u baahnayn lahu waxaa u sugnaaday uu leeyahay maa fi asamaawaati samaawaadkii ciryaalka waxa ku sugan oo dhan iyo wamaa fi alard waxa arlada ku sugan oo dhan in cindakum min sulطaanin in cindakum ay maa cindakum agtiina min sulطaanin wax xujo ah ma ahaanin bihaadaa arrintan ama in cindakum agtiina ma ahaaday min sulطaanin xujo miyaa ah bihaadaa arrintan aad ku hadlaysaan ama agtiina wax sulطaan ah oo xujo ah oo arrintaa tilmaamaysa inuu ilaahay owlaad leeyahay maba jirto ee attaquuluuna ma waxaad ku hadlaysaan cala allaahi ilaahay dushiisa maa laa taclamuun waxaan maba u haysataan sulطaan iyo xujee ma alla dushiisaad ku leedihiin waxaadan markaa ogayn waxaadan cilmi markaa u lahayn miyaad ilaahay dushiisa kula hadlaysaan qul dheh ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranahaya cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba beenta ku abuurtay laa yuflixuuna ma liibaanayaan qul dheh ina aladiina yaftaruuna kuwa abuurtay cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba beenta ku abuurto owlaad uusan lahayn u qiray u nisbeeyey laa yuflixuuna ma liibaanayaan mataacun ay lahum mataacun waxaa u sugnaaday leeyihiin raaxo oo fi ddunyaa
adduunka dhexdiisa ah. intay adduunka joogaan bay ku raaxaysan kuna tamashlaynayaan. uma intaa ka bacdi ilayna xaggeenna ayaa marjicuhum noqodkoodu ahaaday. meesha ay u soo laabanayaanna waa xaggeenna. uma kadibna nudiiquhum waxaannu dhadhansiinaynaa alcadaaba ashadiida, cadaabka shadiidka ah ee kakan bimaa sababtii baannu ku dhadhansiinaynaa kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna kuwa markaa ku kufriya oo beeniya oo diida aayaadka alle subxaana wa tacaala. ee qul dheh ina aladiina kuwii yaftaruuna abuuranahayay cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta laa yuflixuuna ma liibaanayaan. mataacun raaxo ayaana u sugnaatay leeyihiin. mataacun mataac iyo raaxa u sugnaatay oo fidunya adduunka dhexdiisa ahaaday. uma kadibna ilaynaa marjicuhum xaggeennaa noqodkoodu ahaaday. meeshay u soo noqonayaan waa xaggeena. uma kadibna nudiiqahum waxaannu dhadhansiinaynaa. uma kadibna nudiiquhum waxaannu dhadhansiinaynaa nudiiquhum alcadaaba ashadiida cadaabkii shadiidka ahaa ee kakanaa. uma kadib nudiiquhum waxaannu dhadhansiinaynaa alcadaaba cadaabkii baan dhadhansiinaynaa ashadiida ee markaa kakanaa. bimaa sababtii baanna ku dhadhansiinaynaa kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna kuwa markaa ku kufriya. beenintii ay beeniyeenay aayaadka alla ku kufriyeen sababtii ayaan cadaabkaa u dhadhansiinaynaa oo ay cadaabkaa ku mutaysteen. saasaana markaa loo cadaabayaa. uma nudiiquhum kadibna waxaan dhadhansiinaynaa nudiiquhum alcadaaba cadaabkii ashadiida ee kakanaa. waana bimaa kaanuu wixii ay ahaayeen darteed yakfuruuna kuwa markaa ku kufriya. alaa hooyaay inna wliyaa'a allaahi ilaahay owliyadiisu laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ay aha yaxzanuuna kuwii murgoonahaya. aladiina kuwii waayo owliyada alleh aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu yattaquuna ahaaday kuwa cabsanaya. lahum waxay leeyihiin albushraa bishaaray fi lxayaati اddunyaa noloshaan dhow dhexdeeda ku leeyihiin. iyo wa fi alaakhirati aakhira dhexdeedaba laa tabdiila bedelitaanna ma sugnaanin oo ma jirto likalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa la bedelo. daalika arrintaana huwa alfawzu waa liibaan alcadiimu ee weyn. walaa yaxsunka yaysan ku murjin rasuulkii allow qowluhum qowlkooda. waayo ina alcizata cizadu iyo sharaftu lilaahi bay u sugnaatay jamiican dhammaanteed. ciduu doonuuna siiyaa. huwa asagu assamiicu waa alla maqal badan alcaliimu ee cilmi badan. alaa hooyaay ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday man fi asamaawaati samaawaadka waxa ku sugan oo dhan iyo waman fi اlardi waxaa arlada ku sugan dhammaan. wamaa yattabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadacuuna baryaya min duuni illaahi ilaahay sukadiisa shurakaa'a kuwa shuraka ahoo alla wax la wadaaga raaci maayaan. oo cid meel cidla ah oo ilaahay aan waxba la wadaaginoo qoryii dhagxa ah ila ilahay wax la wadaaga maba jiree ka unbay markaa raacayaan. in yattabicuuna raacina maayaan ila danna mala maahane. wa inhum mana ahaanin ayagu ilaa yakhrusuuna kuwa wax iska mala'waalo iska khiyaasa maahane. huwa ilaahi alladii waa macbuudka jacala yeelay lakum adinka alleyla habeenkii idiin yeelay litaskunuu saad ugu xasishaan fiihi habeenkaa dhexdiisa waannahaara maalintiina mubsiran mid iftiimaysa idinkaga yeelo idinkaga dhigay. inna fii daalika arrintaana la aayaatin aayaad baa ku sugan liqowmin qoonday ugu sugan yihiin yasmacuuna maqlahaya. qaaluu waxay dhaheen ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay waladan walad buu samaystay bay yidhaahdeen. subxaanahu nasahnaan iyo tansiih baa ilaahay u sugnaatay. wuu ka nasahan yahay owlaad. waayo huwa alghaniyu waa alla taajir ahoo hani ah aanana u baahnayn. waayo lahu wuxuu leeyahay oo u sugnaaday maa fi asamaawaati waxa samaawaadka ku jira iyo wamaa fi اlardi
waxa arlada dhexdeeda ahaaday in cindakum agtiinana in cindakum ma ahaanin agtiina min sulطaanin wax xujo ah bihaada arrintan ee ataquuluuna ma waxaad ku odhanaysaan cala allaahi alla korkiisa maa laa taclamuun waxaadan markaa ogeen qul dheh ina aladiina kuwa yaftaruuna abuuranaya cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta ku abuurtay laa yuflixuuna ma liibaanayaan mataacun raaxa u sugnaatay leeyihiin fi ddunyaa oo adduunka dhexdiisa ahaaday uma kadib ilaynaa xaggeenna ayaa marjicuhum iyo noqodkoodu ahaaday uma kadibna nudiiquhum alcadaaba cadaabkii baan dhadhansiinaynaa ashadiida ee kakanaa binaa sababtii baanna ku dhadhansiinaynaa kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna kuwa markaa kufriya oo beeniya inkirana aayaadka alla subxaanah wa tacaala watlu calayhim naba'a nuuxin wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.